wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Jamhuuriyadda Soomaaliya Yuusuf Maxamed Cabdi ayaa sheegay inay bilaabeen dejinta odoroska miisaaniyadda qaranka ee sanadka 2018 taasi oo ku salaysnaan doonta siyaasadda xukuumadda cusub ee Soomaaliland waxaanu tilmaamay in ay maalmahanba wadeen kulamo iyo wada tashiyo ay la lahaayeen mas'uuliyiinta xukuumadda kuwaasi oo ku saabsanaa sidii loo kala horeysin lahaa baahiyaha hay'adaha qaranka iyo sidii looga wada tashin lahaa dejinta odoros miisaaniyadda qaranka oo ku salaysan horumarinta qaranka Soomaaliland Yuusuf Maxamed Cabdi wasiirka wasaaradda maaliyadda oo arrimahaasi ka hadlaya waxa kamid ah hadalkiisii guddida siyaasadda ee golaha wasiirada waxay samaynta siyaasadda miisaaniyadda iyo la kulanka hay'adaha qaranka aan isbarbar wadi doona maadaama waqti badan aan ahayn muddadii horena dardargelinta waqtiga iyo institutionka wasaaradda maaliyadda dhismaheedii aanu dhamaystirnay annagu oo ku hawlan sida oo kalena inaan markii koobaad soo saarno qorshaha wasaaradda maaliyaddu ay leedahay 2018 ama strategy ministry finance development ay leedahay sida oo kale waxa aanu ku hawlanahay sameynta siyaasadda kharashaadka iyo cashuuraha ee loo yaqaan fiscal policy loo yaqaan anagoo aasaasnay fiscal policy unitna aasaasnay oo wasaaradii qaybo badan ku soo kordhinay oo institutionkii wasaaradda dhisnay isla markaana anagoo adeegsanay qof waliba halku ku haboonay the right person on the right position anagoo ku xulanay aqoontooda way aragnimadooda kartidooda iyo daacadnimadooda iyadoo wax kasta iyo qof kasta oo wasaaradda maaliyadda maanta jooga aanu ogaanin xilliga ay dhamaanayso xilligu waqtigu dhamaanayo oo toddobada shaqada soo galaan labadii dheeraadna ay rawaxaan annaga oo cashuuraha bariga shifti labaad u sameynay si tirada shaqaalaha joogta uga faa'iideysano waxaan ku soo gabagabeynayaa hay'adaha qaranka ee kala duwan waxaan ka codsanaynaa waqtiga dhowraan sida oo kale waxaan ka codsanaynaa haddii alla yiraahdo oo miisaaniyaddan ay noqon doontaa inaan gobolada dalka caasimadahooda soo marno si bulsho waliba uga qayb qaadato bulsho waliba ay taqaano kharashka galaya iyo mashaariicda galaysa iyo dakhligeeda laga rabo iyadoo aan samayn doono oo qaabkeenu ku dhisnaan doono sidii hore baan u sheegnay budget ah community participation budget dhanka kale wasiirka wasaaradda maaliyadda mudane Yuusuf Maxamed Cabdi iyo wasiirka wasaaradda ciyaaraha Boosmire Maxamed ayaa sheegay inay soo afjareen cabashooyin ka soo yeeray kooxaha kubadda ee ku ciyaara magaca wasaaradda maaliyadda wasiirada oo ka hadlaya arrintaasina waxa kamid ah dalkoodii saaka halkan waxaan wada joognaa xafiiska wasiirka wasaaradda maaliyadda anaga iyo tiimkii wasaaradda maaliyadda u ciyaari jiray waxa jiray waxyaabo badan oo dacaayada oo laga fidiyay inaan mar aniga wasiirku ishayno in mar wasiirka tiimku ishayaan waxyaabo badan oo caynkaas ah oo muddo markii war la waayay war laga dhigtay dabadeedna intii dambena la sii siyaasadeeyay dabadeedna ninba meeshuu doono u dhigay waa naga wada joogna tiimkii iyo wasiirkiina waa kuwa wada jooga aniga wasiirkii ee ahayd waa naga wada joogna halka cid bele ka doondoonaysa bele dambe kama jirto waa kuwa dhalinyaradiina wasiirkana waa halka fadhiya arrimahaas sidaas ku dhamaadeen cid aaminsan in xubnaha xukuumadda kamid ah hayso waa been ma jirto mana jiri doonato horena oo may jirin wasaaradaha qarankuna waa wasaarado siman hal ujeedana wada leh dhammaan ujeedooyinka loo aasaasay iyo siyaasadda xisbiga kulmiye dhinacay doonto ma noqoto haddii kubcinta dhaqaalaha noqoto hadday shaqasiinta dhalinyarada noqoto way macroeconomic marka maqashaan shaqo la'aanta ayaa ku jirta ama in lala dagaalamo shaqo la'aantana iyo maxaan ku arrimaha dhalinyarada wasaaradda sportska ciyaaraha in lala shaqeeyo wasaaradda maaliyadda waxay si dhow ula shaqeyn doontaa hariye habeen ula shaqeyn doontaa wasaaradda ciyaaraha iyo wasaaradaha kale qaranka iyo hay'adaha kale qaranka waxay u furantay oo la shaqeyn doontaa shacweynaha Soomaaliland oonu nahay adeegayaal aanu nahay shacweynaha Soomaaliland intooda badan 75% dhalinyaro tahay ayaanu adeegi doonaa waxaan ku celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad siyaasadda qarankani waxa weeye hirgelinta siyaasadda xisbiga kulmiye ama program manifesto oo number 1 ka tahay maxaan ku dhahdaa ama ay ugu mudnaan tahay kuwa ugu mudan ay ku jirto arrimaha dhalinyarada